soo dhawaada muqdisho iyo weerarkeeda muqdisho arrin cusub ayaa ka cusub leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo u ficilay inay maqlaan ee kana hayaan muqdisho waxa la rajeynayaa oo macnaha lagu fikirayaa oo qorshe cusub in mootooyinka gabi ahaan muqdisho laga xareeyo oo gabi ahaan mootooyinka la tiro halka bedelkooda la keeni doono basas shacabka raacaan oo meel walba sida bilicda magaalada loo qurxiyo niyo muqdisho laga dhigo meel walba maarta la qurxiyo ayu jiingadaha la jajabiyo guriyo cusub magaalada laga dhigo fiyaa laga dhigo laamiyaal la saaro mootooyinka jaamka tirada keenana magaalada laga tirtiro waa arrin aad u wanaagsaneen dhalinyarada mooto ka shaqeysta mootooyinka si aan ognahay dad badan ayaa ku shaqeysta oo masaakiin oo in dad badan ayaa laga bilaa qof walba oo mooto wata arrinkaas uu kala doona waa qorshe cusub ee wada dawladda niyo muqdisho basas ayaa lagu bedeli doonaa qaybta mootada weliba mootada jaam ay bilowday oo magaalada waa laga shaqeysan waayay basaskaas isgoosida muqdisho dhowr nooc la dhigi doono oo qof walba halkaas ku raac doono lacag jaban halka mootooyinka magaalada jooga laga xareey doono mid la walwaleeda iyo mid bajaajka waa qorshaha waa socdo waa ana uma lama wax sax inay yihiin oo la sameyn karo ama maartay shacabka jecelihiin muqdisho waxa la bedeli doonaa guri walba dabaq ayaa la dhigi doonaa meel walba laami waa la qurxin doonaa niyo muqdisho waa ra'yiga iyo dawladda qaabka ee wado xasan ee wadan waa shalay shirweyne ayaa ugu socday madaxtooyada ilaa afisyooni waxa la wixii ganacsataa qof walba oo suuriye ra'yiga in magaalada laga dhigo basas laga dhigo oo magaalada maartay basas dhaadheer la keeno dadka ay raacaan mootooyinka la baakimo magaalada jaamka dhigeen wasaqada qashinka taana la xaaqo magaalada jaamka si u yaraato dadkana ee basaska ku raacaan shilmaan yar ku raacaan waa qorshe cusub qof walbana ayaan qaar weydiineen oo ma aaminsan qorshe dhex doono oo qorshe oo maartay liiri waa lagu soo qorway oo muqdisho markaas waxa la kala cashar cusub oo dadka masaakiinta marna lagu shaqo joojinayo marna lacag lagu aruursanayo meel waxay noqotay loo soo shaqatay waa min walba oo imaada madaxa 4 sano oo joog kaliya mashruuc keensanayo aska qaato hadda bakaaro way xiran tahay lacagay awood ayaa lagu soo rogay ilaa 6 bir dobar ay iska xiran tahay mootooyinkii dadka masaakiinta ku biilanayeen oo intaas oo qoys ay ku nool yihiin ayaa markaa cali waa la tir doonaa basas ayaa la keenin doonaa ummadda u shaqeeya waa qorshihii ugu xumaay dadka muqdisho qoys ay joogaan gurigii waa lagu dumiyey meelihii beedka ilaahay lagu tukanayo masaajid xataa waa la dumiyey wax shay walba oo wax ka soo galayna baabaa la dhigay nin walba mashruuc ayuu keensanaya hadda qorshahan basaskaani kambani ayaa wata raba in basaskaana suuq u galaan u shaqeeyaan sida mootooyinka loo istaajiyo bal fiiri qof ayaa lacag haysta mootooyinka ayuu istaajinayaa basas ayuu keenaya basaskaas ayaa raba in magaalada ka shaqeeyaan halka dhaqaale ka sameeyo dawladda ayuu nasiixi ka qaadanaya qof walba muuqaalka shariga waa muuqaalka una xinta badan dhalinyaro badan oo mooto ka shaqeysta weliba baagamoodada ugu dhumatay ayaa anikaan kale aad u dhibaysaa ee taabanaysa iyo maamooyin badan oo laga biilijay carruur badan oo biilka qaadi mootooyinkaasi muqdisho boqolkiiba 50 maanta mooto ayada wax biisha qof walba uu yahay caasi uu dhamaatay basna ma jiro halka dawladda laga soo dhameeyay in basas la keeno cusub noocyada xamar yaalma noocyada yaal Yurub dhaadheer kala keeno wadooyinka la dhiso niyo xamar dhaman jawi kale laga dhigo oo mooto fara laga qaado mooto dalka Hindiya ayaa soo saara dalka ugu badan oo mooto soo saara wayna ka shaqeysaa ayagana horumar dhaqaale nabad magaalo qurux badan haystaan isna mootona way shaqeysaa muqdisho marka ma aqaan meel u socotaan qof walba mashruuc ay soo qaadanaya dawladana qalinka ay ugu duugaysaa gadaal wax ka dhex doona shacabka dhibaato ma u tahay maxaa dhex doona dhib miya arrintaasi oo shacabku maxay wajihi doonaan qof ka fikir habeelati ma jirto meel wax la imaanaya dadkii masaakiin marata oo maanta meel u guraysan alee meel qabantaa ismiliha ka kiciye aqaf qabta dawladana saxiix ay iska qabanaysaa والله مقدشو قوس واي ضمن مساكينة أو واحد والله إنسان لا يقعدنا بل في هذا مشروع عم بس كاننا كنسلي وعلى ترتريا موتوينك بس كان عايش خيدهم وعسيد قرشها لكن واحد للسماء دور ما أنا مثلا صوته قرشة سعنا معها جوك بنادر دور قرش بدل عيالك كاني قاروي سعودي قاروي سعوديين Soomaaliya maqalmeel galsiya waa qorshe ugu xumaay arrin xadana dhalinyaro badan oo baagmada ugu dhumatay ayaana wajahayda cadaadis aad u badan in mar walba qof walba ganacsada in mashruuc iska keensado loo saxiixo dhalinyarada markaas madax lagu istaago muuqaalka shargareey aad u baadsan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.